maanta waxaan ka hadlaynaa ma jiraan faa'iidooyin ku jira cunista malabka haddii qofka uu qabo xanuunka macaanka. sidoo kale waa maxay khatarta haddii qofka isagoo qaba xanuunka macaanka uu isticmaalo malabka. marka hore haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe garay qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. faa'iidooyinka cunista malabka ayaa ah in malabka uu kordhin karo heerka insuliinta ayna ka caawin karto xakamaynta sokorta dhiigaaga ku jirta. in aad iska joojiso sokorta aadna booska sokorta aad ku bedelato malabka sidoo kale faa'iido ayay leedahay. iyadoo la tixgelinayo sida malabka uu u yahay isha laga helayo antioxidant-ka isla markaasina leh astaamaha anti-inflammatory. cunada hodanka ku ah antioxidant-ka ayaa hagaajin karta sida jirkaaga uu u miisaamayo sokorta iyo astaamaha anti-inflammatory ee malabka waxa ayna taas ay yareyn karaan dhibaatooyinka sokorowga. cudurku waxa uu horseedi karaa iska caabinta insuliinta taas oo ah marka jirka uusan si sax ah uusan uga jawaabin insuliinta. haddaba ma jiraan wax khatar ah oo qofka uu la kulmi karo haddii isaga oo macaanka qaba uu isticmaalo malabka. maskaxda markasta ku hay in malabka uu ka macaan yahay sokorta. haddii aad ku bedelato malabka sokorta ama booskii sokorta aad isticmaali jirtay aad ku bedelato malabka waxaad u baahan tahay oo keliya in aad xaddi yar oo malab ah aad isticmaasho. sababtoo ah malabka ayaa saameyn ku yeelan kara sokorta dhiigga. iska dhowr dhammaan macaanada kale haddii sokortaada ay kacsan tahay. malab waa in lagu cabaa si dhexdhexaad ah. kala hadal daryeelahaaga caafimaadka ama dhakhtarkaaga caafimaad bixiyaha inta aadan isticmaalin wax macaan ah. haddii sokortaada si wanaagsan loo xakameeyey oo aad rabto in aad ku darto malab cuntadaada dooro malab saafi ah oo dabiici ah. noocyadan ayaa u nabdoon dadka qaba sokorowga sababtoo ah malabka dabiiciga ah oo dhan ma lahan wax sokora. gudaha dalka Soomaaliya waxa aad inta badan aad arkaysaa malab lagu qasay sokor loona ekaysiinayo malab inuu yahay. waa dhibaato aad u sareysa haddii qofka qaba xanuunka macaanka uu isticmaalo malab noocaasi ah. waxaa laga yaabaa qofkaasi in sokortiisa ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay sare ay ugu kacdo. waxaana wanaagsan markasta qofka in uu doorto malab saafi ah oo dabiici ah ama uu og yahay malabkaasi halka laga keenay. si kastaba ha noqotee haweenka uurka leh iyo dadka leh nidaamka difaaca jirka waa inaysan cunin malab cayriin ah maadaama aan la sifeynin. haddii aad soo iibsato malabka la warshadeeyey ee laga soo gato dukaamada raashinka waxaa sidoo kale ku jiri kara sokor ama sharoobo. macaanadaasi lagu daray waxa ay saameyn ku yeelan karaan sokorta dhiigaaga si ka duwan sidii caadiga ahayd. markasta ka fakar islamarkaasina dooro malab saafi ah oo dabiici ah. noocyadan ayaa u nabadoon dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta maxaa yeelay malabka dabiiciga ah marna ma lahan sokor saameyn ku yeelan karta xanuunka macaanka oo aad qabto. cudurkan la yiraahdo macaanka ama sokorta waxa uu inta badan uu u kala baxaa 3 nooc. nooca koowaad waxaa keena in jirka uusan helin insuliin ku filan taas oo ka timid burbur ku yimaada unugyada soo saari lahaa. waxa uuna inta badan uu ku dhacaa caruurta iyo dadka da'da yar. sababaha ugu badan ee qofka uu ugu dhici karo cudurkan waxa ay noqon kartaa kuwa dhaxal ah oo kaga yimaada waalidkiisa oo horay u qabay cudurkan macaanka ama sokorta. sabab la xiriirta deegaanka sida cunnada uu qofka uu cunayo iyo weliba in uu burbur uu ku yimaado unugyadii soo saari lahaa insuliinta. nooca labaad waxaa keena sabab ay ka mid yihiin jirka oo aan ka jawaabin insuliinta ama in uusan helin insuliin ku filan ama unugyada beerka oo aan si wanaagsan u isticmaalin insuliintii la soo saaray. nooca labaad ee cudurkan macaanka waxa uu ku dhacaa dadka dhexdhexaadka ah, dadka duqoobay iyo dadka sidoo kale aadka u cayilan. uma badna inuu ku dhaco dadka yaryar haddii aysan ahayn kuwa cayilkoodu xaddhaaf uu yahay. sababaha ugu badan ee noocan lala xiriiriyo waxaa ka mid ah cayilka zaa'idka ah, jimicsi la'aanta, jirka oo aan insuliin si habboon u adeegsan iyo beerka oo soo saara sokor aad u badan taa oo keenta in dhiigga ay sokor badan ay ka buuxsanto. dadka halista ugu jira nooca labaad ee xanuunkan macaanka waxaa ka mid ah dadka 45 sano iyo wixii ka badan da'dooda
dhiigooda ay tahay dadka cayilka xad-dhaafka ah saaran, dadka aan jimicsiga samaynin, dadka cadaadiska dhiigooda uu ka sareeyo 140 ilaa 190, dadka qaba xanuunada wadnaha. nooca saddexaad waxa uu ku dhacaa haweenka uurka leh oo keliya, waxaana sababa isbeddel ku yimaada hormoonada. doorka insuliintu ay ku leedahay jirka waxa ay caawisaa murqaha beerka iyo xeerta iyada oo soo nuugta sokorta dhiigga ku jirta si ay hoos ugu dhigto heerka sokorta ee dhiigga. waxa ay kicisaa murqaha iyo beerka si ay u kaydiyaan sokorta dheeraadka ah ee uusan jirku u baahnayn. waxa ay sidoo kale ay yareysaa sokorta uu beerka uu soo saarayo. calaamadaha lagu garto kaadi macaanka waxaa ka mid ah oon badan, kaadi badan, gaajo badan, daal badan, meelaha dhaawacyada soo gaara oo aan dhaqso u raysan, aragga oo daciifa, miisaanka qofka oo yaraada iyo caabuq soo noqnoqda. daawadayaal, waxaan filayaa markan in aad fakar fiican aad ka haysataan in uu jiro faa'iidooyin ku jira cunista malabka haddii qofka uu qabo xanuunka sokorta ama macaanka. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena, subscribe dhe, share garee qaybta hoose, waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. waxaana janaalkan caafimaad uu gaar u yahay cilmiga caafimaadka. fadlan si aad ugu xirnaato furo gambaleelka isla markaasina subscribe saaro boggan caafimaad news.